laba qodob oo xasaasi ah bal wax ka dheh arinta koowaad odayaal ay halkan fashilay dhawaan doonayay inay gaashaamo u dhuuntaan ay gacan bidixeeyaan masiirka dalka SSC qaatimo nimanka iidoonay halka tagay gaashaamo ayaa shalay afka furtay waxay ka hadleen sida wax u dhaceen cidda kala shaqeynaysay iyo talabadan barnaamijku ku faaqidi doona waxa kamid ah hogaamiyaha maamulka Maakhri State tagay magaalada Laascaanood caasimada dowlad goboleedka SSC qaatimo madaxweynaha dowlad goboleedka SSC qaatimo Cabdiqaadir Axmed Abu Cali Firdhi ayaa ku casuumay qasriga madaxtooyada ee looga aramiyo SSC qaatimo hogaamiyaashu waxay ka wada hadleen qodobadaasna waan idin faaqidi doonaa insha Allah taala fadlan isgaarsi muuqaalkan meel dheer ka tooray qodobka koowaad maalin dhaweyd halkani dhamaantii inaga wada jira anigu deegaankan wax idin soo gudbiya kaliidku waa meelaha dhaadheer ba ka turtaane waxaanu fashilay niman odayaal iyo culimo sheegtay oo doonayay inay gaashaamo u tagaan shir dhuumasho halkaas oo lagu galo arinta waxa dabada ka reexayay hogaamiyaha jabhadda khawaarijta argagixisada SNM Cirro iyo tiimkiisa niman baa la soo dhinac maray qaarkood culimo sheeganayaan qaarkood uqaal sheeganayaan buu wallahu nuhu la yiri wax la rabay marka dadka la khiyaameeyo halka waanay qeerinay waanay jamaahirti kicinay waanay shacbiga reer SSC qaatimo meel walba gaarsiinay waatii si wada jiraan uga wada waxa weeye aynu isbedel weyn uga muujinay aynu kacdo balaaran muujinay ugu dambeyn waanay joojinay kooxdii dhigmiiratada ahayd ee doonaysa dhiigga dadkeena inay ka beec mushturto haddaba waxa xalay ama shalay afka furtay mid kamid ah kooxii ka socday nabadiidka jabhadda SNM oqaashoodii ayaa wax walba fashilay waxaan rabaa muuqaalkan idinku daaro qodobada uu ka hadlay qaabka uu shirka ku fashilmay inta shirka waday ujeedku wuxuu ahaa wax walba banaanku keenay marka aad dadka masiirka ummadda ilaalin weydo ilaahay ceebaha ma asturo ilaahay ceebahooda fashilay anu kuwa iidoor dhaliili maayo ninka iidoor wuxuu doonaya waa garanaya laakiin ninka reer SSC qaatimo especially dhul baahantay waxa uu isagu doonayay ma ahayd haddaba waftiga warshu wuxuu ahaa ya dhagarta arintaas ku gadaameed ila dhageysta ninkan ayaa inoo sharaxay ninkan oo isaaq oo jimcaha baan halkan ka baxnay intaanaan magaalada ka bixin ayaa xiriir qolada dhul baahantay ay la soo hadleen iska jooga baan walaal sabab ma sheegin ilaa bari baan soo baxnay iska jooga oo marka waa la wax qaban oo tagno nabad caana de ma ahayn waxay koox buu wada joogtaa iyo joog dheer joogtaa kulay dawladuna gacan bay ku hay marka bismillaah la soo xiriiray waayahay saddex qodob baan muuqaalkiisa ka qaatay dama wada baahin kare inta aan ugu muhiimsan horta wuxuu sheegay shirku koox isbu ahaa koox buu wada joogtay buu yiri koox tog dheer ama burco joogta ayaa shirka abaabuleysay waa qodob oo shir waxa uu ahaa dhuumasho shir daran gaar laga leeyahay buu ahaa arinta kale wuxuu fariin buu diray oo ah oo uu qaraxay wasiiro jabhadda SNM ayaa soo ayay oo arintan qayb ka ahaa arintan riixay qolada buu wada joogtay la xiriiriyay taasina waa shirqool weyn oo la rabay in waxa weeye la isku xisabtamo aw sheeg sidoo kale habar ayaa gogosha dhigtay ama isaaq sidaas halka kooxda buu wada joogtay ee doonaysa inay waxa weeye gacan bidixisana ay tiri dowlad deegaanka gogosha dhigtay taasina waxay ahayd qodob kale saddexda qodobba qool iyo dhagar laga badbaaday ayay ahayd arintaasi waxaan maqli jiray sirma qabe sababiyo celiya nimanka ka shaqeynayay arintaasi oo ninka isaaq maanta inoo sheegay sabab ay inoo dhax fadhiyaan buu hoole reer SSC qaatimo aanu ma qabo inay sax tahay waa in la maxkamadeeyaa cidii kala shaqeysay ee maamul ahayd ee waxa weeye qeybaha kala duwan ee hawsha ka shaqeynaysay waa in la maxkamadeeyo oo lagu xisaabtamo xaqiiq weey arinta haddaan maalintii hadleen haddaan qeyradaan waa waray aan waxa weeye afka labadii qaylin waxay tagi lahayn gaashaamo sawir baa la gali lahaa international community-ga caalamka adduunka dhan waxa laga yeeli lahaa beelo reer SNM ishaya waa si narrative-ka ay abuur jireen idoorku ay meelaha wareejin jireen arintaas halis bay ahayd aynu ka badbaadnay waxay horseedi lahayd in la kala dhantaalo midnimada iyo wadajirka reer SSC qaatimo oo la yiraahdo reer Aragaaban gaar ha u fooftagaan reer Soola gaar ha u fooftagaan hadda horey reer buu hol u fooftagay taas la oran lahaa
marka si wada jir ayay arintaasi ku fashilay arrimankii waxaan ka shaqeynayay caawa ayay dhex fadhiyaan dhiiqo weyn nig walba hawsha ka shaqeynayay liiskiisa waa la hayaa weyn la maxkamadeeyo wala la xisabto oo ay talada ka ilaalinaa oo ay shirarkana ka ilaalinaa waayo waa gacan saddexaad baa ku jirta xaqiiq weeye taasi waa qodob intaas aan leeyahay shirqoolka aynu ka badbaadnayna hadda ilaahay baa ina jecelo waxaynu ka noolahay waad garan kartaan waxaynu ka noolahay waa garan kartaan qadiyadani wiilal baa ilaashanaya gabdhaha ilaashanaya haliyeeya ilaashanaya isku day kartaan khiyaamayso habeenka xalay tagay weeye kii isku day Soomaa tiirka la istaajinaya ha talada anaga leh dhaxalkaygi weeye cid ku ciyaari karta ama oday ku ciyaari kara ama wadaad ku ciyaari kara ama dhaqan ku ciyaari kara ma jirto hadii horay aysan u jirin kuwa qadiyadooda ilaashada la gacan bidixeeyo oo waxa weeye la sarrifay dhiigooda maanta maya war jamaahiir sarruba dhiigana meel sarrifan kara qadiyadana meel iibsan kara maya adeero cibaadayso misaajidka gal ilaa wax dhaama ku siiyo qodobna wax rabaan ku dhoolo arin halis rabaan caawid la wadaago cirro iyo tiimkiisu siyaasad ba ciyaareen waxay qorsheeyeen waxay dheereeyeen si qaatmo 800 tiknika ba haystaan caadifada qabiilka kuweyn dagaalka kama adkaan karo wixiina helay 25 August iyo maanta ugu dambeysay jimcii baan loo soconaa nimanka dagaalka kama adkaan karo xabad hadii qush laga siinay kama adkaan karo wuxuu markaa cirro keenay policy wayna mushaharka siiyaan ninka reer SC qaatmo askariga xabada ugu riday wayna mushaharka siiyay weeye ninka xabada ila dhacay aniga waxa weeye ila dirsan waynaan mushaharka siiyaa oo la isku tuura oo ila meel aan lacag u mariyo moogta ahara ugu badnaan sanad bay lacag soo inaga baxaysaa sanad kadib waynu kala diri karnaa ninka aaminsan ninka reer SC qaatmo xabada ugu sirada mushahar siinaya hadda waxa weeye waa garan kartay siyaasad fog buu kale yahay arintaas waa dhagar weyn hal laga waxa weeye feejignaado hadda waxay raadinayaan ilaahay soo marin lahaayeen laakiin indhahan ku haynaa inta nool lahay xogtooda iyo waxa weeye arrimahooda hoos waa la soconaa waxa la sheegay sidoo kale daaqiyada ku diideen oo warman xabad lagu riday lacag siinaysa arintaasna isagu ka diiday marka dhagartaasna hal laga feejignaado waxa weeye hal loo toga hadda ilaahay bay raadinayaan meelihii arintaasina waa dhanateed waa riwaayad waa walaahow ana ku hungoobayaan insha Allah taala qodobkaasina waa qodobka ugu dambeeya hogaamiyaha maamulka Maakhiri State Dr. Ali Ahmed Faatax oo hogaamiyihii dhawaan lagu doortay degmada Baran ayaa tagay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee caasimadda SSC Khaatimo madaxweynaha dowlad goboleedka SSC Khaatimo Cabdiqaadir Axmed Ali Firdhiye ayaa ku soo dhaweeyay qasriga madaxtooyada ee looga aramiyo dowlad goboleedka SSC Khaatimo labada hogaamiyo waxay ka wada hadleen wada jirka iyo midnimada lagu wajihi doono dagaalka ceerigaabo iyo in si wada jira looga shaqeeyo midnimada iyo wada jirka labada shacbi ay ka wada hadleen arrimaha mustaqbalka siyaasiga goboladan iyo dhulkan Maakhiri iyo Khaatimo oo dhul istiraatiiji in badanna waxa weeye darahooda iyo masiirkooda raar loo haystay dhulkooda cadow gacanta loo galiyay dabcan dibadaabiye badan laga shaqeeyay markasta dadka reer Maakhir ama si kala hadaan u dhigo warsigay dhulbaahante aad baa loo kala ilaaliyaa sababta ma garanaysaan waxa loo kala ilaaliyo waxa weeye waa sidii dhulbaahante loo kala ilaalin jiray isla dhulbaahante ma kala ilaalin jiray waagii dalkan cadowgu joogay saddex reer dhulbaahante inay khayr iyo wanaag isugu yimaadaanba isaga waa ka diriri jiray oo ka dagaalami jiray markii dambe waxa dhacday midnimada dhulbaahante ayay ka carareen midnimada dhulbaahante waxa dhashan waa aragnay Soomaalidu waxay tiraahdaa waraaba daalay baa dirirta loo tagaa dadka in badan bay kala qaybiyeen ugu dambeyn markay midoobeen adduunka dhan baa gelgelmay jabkii ugu weynaabaa ku dhacay jabhada khawaarijta argagixisada horta marka koowaad soo dhaweynana kulankaas habeen hore ayaan halkan ka hadlayo arrimo badan oo madaqada ku nool arrimahooda ka hadlay waxa muuqata fariimaheegii inay dhamaantood successful ay wada noqdeen oo ay wada guuleysteen meelihii loogu talagalay ay gaadheen sideedaba anaguna xaqiiqadan ka wajaha runta xaqiiqada kama gabadaan halka u dhimanayna waa taabtaa marka ifaalo fiican baa muuqda mid kale warama in sheego reer Maakhiri iyo reer SSC Khaatimo arrimaha ay wadaagaan waxa kamid arinta koowaad
waa dad isku juqraafiya isku dhul isku deegaan ku nool arinta labaad waxay ka sameeyeen midnimada Soomaaliya iyo ilaalinteeda oo ay muddo badan u halgameen sidoo kale waa dadka kaliya ee dhulkooda waxa way curaar loo bixiyay curaar iyadoo cid kale lagu raali gelinayo waxa way dhulkooda laga dhigay waa dhul lagu muransan yahay hay'adihii waxa way laga mamnuucay xildhibaanadooda iyo kuraastooda la boobo washaariic aan la gaarsiin dadkaasina masabka kuraastooda dhulkooda masab iyo waxa way curaarna loo bixiyay masab kuraasna lagu doorto ay u halgameen dhulkooda inay taladooda dib u la soo laabtaan dagaalkii laascaanood baa loogaa siday ugu hilbidirireen iyagoo wada jiro midah waxa looga kii ergaabo si ay ugu hilbidirireen waxa looga sida hadda ay diyaar u yihiin inay taladooda mideeyaan dhulkooda ay difaacdaan iyagoo isku duuban waa dad walaalaha oo wada dhashay oo isku deegaana oo waliba nabad ku noolaa waliba aan iskhilaafin weyn waxa dhexdooda yaalana reer maakhriin reer SSC Khaatuma oo waxaan biyana meeri karin birna aysan goyn karin weeye waxay wajaheen dhibaato 34 sanadood dhulkooda waxa way haysataa ama dhul lagu muransan laga dhigo ama hal lagu duulo ama curaar ha loo bixiyo ama taladooda waxa la gacan bidixeeyo ama markasta isku tayaan inay wada hadlaanna dhibaato conflict ay dhexdooda laga dhaxabuura hadda kuwa sheeganaya ogow haday dhahan war dhulkayga wax u qabta war hay'adaha noo soo daaya ma ogola war dhulkayga hay'adaha loo fasaxo horumarka ayaa laga oryaamay ma ogola waxa kaliya ay doonayeen waxa weeye ummadda dhulkeeda waxa weeye in curaar loo haysto curaar in loo haysto dekada maanta laas qoray oo ogeedeen markay shaqeyn jirtay iyo hadii la kuuray warshadii kalluunka dadkaasi bay'aa mushtar bay haayeen ilaahi dhaqaalaha dhan laga dagaalama iyaga reer SSC Khaatuma iyaga reer maakhir marka maanta inay midoobaan inay wax iska weydiiyaan dalkooda iyo deegaankooda waa arrin mudan in la soo dhaweeyo ilaaha hadeerna soo far sida hadda ay wax u socdaanna waa si wanaagsan weey insha Allah waxaan rajaynayaa in guul inoogu dhamaato hawlaha wanaagsan ee socota marnaba arinta qadiyada dadkeena iyo madaqada umada ku nool lama dhuumanayno in uga gabanbayno dadkaasi masiirkooda iyaga xor u ah waa taageersanaano waa soo dhaweynayna waxa way insha Allah wanaag iyo midnimo baan doonaynaa insha Allah taala inay maamul waqooyi bari oo waqooyiga Soomaaliya ka taliya oo dadkaasi ku midaysan yihiin oo ay mid ku yihiin baan doonaynaa insha Allah taala inaan ka shaqeeyno lama dhuumanayno wallahi lama dhuumanayno wallahi umadaasi dhibaato in ku filo waa soo martay lagama yaabo mar labaad in dhulkooda curaar loo bixiyo cid kale lagu raali geliyo insha Allah taala qof kasta oo reer maakhira oo reer SSC Khaatuma halay indhaha fur taariikhdii la soo maray tagtay wax ka baro wax ka baro dhulkaasi horumar ahaan dib u dhacay ganacsi ahaan dib u dhacay waxa way hay'ada ma tagaan sababta ma garanaysa waa la curyaamiyay sidaas mar labaad u soo laaban maanta talada gacmihiina ku jirtaa u midooba insha Allah taala khayr baan idin rajaynayaa insha Allah. Assalaamu calaykum.